Soomaalna aga shaqay Kenya markaan joogno ugu shaqaysan jiray meesha gaaran laga soo kaxay bareeg ma soo qaban meel waa badan laga soo aadaday oo xeebna aano magaalana aan ahayn yaa badan loo keenay doon afkana nolol geliyo macnada magacii waa daruur Bashiir Macow waa leedahay anigu magaca caadiga oo caamkan ku ah qabiilkiina waa makane meeshan ku dhashan waa Jubbada Dhexe waxbarasho meel tuulo aan wax ku bartay oo Jubbada Dhexe kameel ah dugsi Quraan aan dhigtay meel dheer kuma gaaran laakiin intii yaroon bartay waa qaarna waa iga baxsan qaarna waa haystaa nimankan waxaan ka raacay gobolka Iida oo joogay Jubbada Dhexe meeshan ka raacay bugalalla macnaha hadii ay hoos tagtaa laakiin meesha aan degno joogo waa meel tuulo oo cilmi ay dhahan hadii wacdi gelintooda iyo markay tuulada ay soo booqdaan wacdi gelin oo macnaha rag waa ku iimaanayo hadii ku wacdi gelinayo maartay maxaadar ku dhigay mugta maxaadarada ay ku dhigaan hadeen cid kale meesha ka maxaadaraysa malahan hadii gobolka asaga waa cid haysto kulay waa ogtiin anigu marka hore waxaan ka shaqeyn jiray mar hadeen aan Kenya degnaayo Kenya aan joogo waa jirtay Kenya waxaan joogay dhagaxley sidii waxaan ka shaqeysan jiray mooto mooto feeko macaadi dhax gud yaan ka shaqeyn jiray Soomaalna aga shaqay Kenya markaan joogno ugu shaqeysan jiray Kenya markaas waa xaafadaha dad oo mootooyin oo xaafada ka shaqeeyo macnaha dad qaada oo seen magaalada gudaheeda macnaha sida ifo kale yaa dad la geeyni safaro ama baadiyaha sadad geynaysa ay waa shaqo mooto iska shaqo mooto Soomaali hooyada yaa xanuunsatay ayadoo Soomaali joogtay xanuunsatay asaan qaaday waxaan geeyay meel ay dhahan dhagaxley labadaas indhooda aleel ka kortay labadii indhood marka hal ilwaan fiiqa oo lagu fiiqa meesha maskaxda marka waxa jaam noqotay si walba saan ula tacaalay marka waan jaam maskaxda macnaha jiirotay oo waa maskaxda raacay isha marka la fiiq macnaha maskaxdeeda waxa jiirotay macnaha marka waxay noqotay marka danta ay ugu qalaftay inaan Soomaali aan ku soo celiyo Soomaali ku celiyo unahan dadkii qaraabada ahaa Soomaali aan ku soo celiyay abaar baan hadana sidoo kale aan quraamiyay oo aan wax say ku caafimaad leed aan faraha la galay way caafimaad markay caafimaad kadib yaan ku dhahay hooyo hadii aan cayaalkii waxay iga jiraan Kenya waan u laabanay cayaalkii baan hadii si aan ku soo wada lahaa yaan falkeeda galay ama xagaas aan u laabanay oo hooyadayba iga diiday marka waxay u tiri Kenya iga ma tagaysaa wiilna adaan ka haystaa anna Kenya maro hadii cayaalka hadaa rabto waa dalban kartaa way ku iimaan karaan waad joogaysaa Soomaali kama tagaysid oo kale ani shaqadii mootay adeedo أنا وش خذي موتيات وأنا أنا اللي أنا تبروح أقصى قات مال جلب يبوال ولا حس مجال ما أهمش ومال دور هذه ما هبل مليجر لكن ومال إسك دور أو ما مجال له ما تبرقات سندري ما يقولين أيضا كده لو بقول أفرتنا وهرت مركور هذه قار إسك تجينا أي جرا معانا الأذي أنت عن أحيانا مركور لو بقول أفرتنا الجانب رجع يربى كجريو طبعا قفضنا أنجارين والضمادة إيو قبيل أهان تضمها يولا حلين ودن كيس ما أقان قبيل كيس ما أقان لو قديس هذي رجع معناها أجانب رجعنا للسعودية رجعوا هاي هن ورما إن هاين إن إثيوبيا هاين ما قان لكن ترجمانها أنا أساكها مركان الله تو بري أنا هذا حاجة كم شقينا قبل كذا أن كسورة كم شقينا من راحن وحنا كشقينا أما مجال أنك تقني أما أنك جب هذينا هتعملين توبرك مركان كصوب عن حلقة أنا لسوقات تياتر هني كانوا هذا نن أو حاجة أنا قصو هربا هاين لكن رجع دونت مركان سوكرني غيري وصوراني هذه يدي وضد أنه أنا وضد كم كلا كانوا حاجة شبه لا كان مسوي هذا نرتو قبل كان أنتم مسوي هذا لكن جاري وينه يودي يا صوراني ميل ده هو طول دبر ودقينه وميلها أربو وين الله أندريمه سوني هذا مرة إيمانه عبارة ما مش جونا مدة الله بلاد يو دور ما مش جونا كدي بدنا جاري كلام صورنا سأوصل صورنا إيماني ميل أيد هان إن شبه لنا هو سيكون تعالى أو ميل قل أهم تقنيه هذانا سونا هاوي يعني إيمانه عبارة ما سأوصل جوني أو يا الله بلاد يكال قصة ما جونا ماشي جارن لا يسوق حي بريك مسوق بين الميل وبدن لا يسوق أدي أون حبنا أنا مجالنا أنا هن يا بدن الله كان يدون أفكنا نلقي اليوم أنا دون على دون حصرنا صدام دون دورت خيب يسوق هذا يسوق دون لسوق راعي مهن دون تمر كان صراع هني
tira ahaan inta doonta aan ku saarnayna anagu doonta aan saarnaa 30 qofood horta kama yaran macnaha doon walba ma qaybta saarnayd macnaha laba doon ay wax ها إلا 60 qof aday marka doonta wax inta saaran inta inta saaran macnaha ceeler meel ayna xeeb qumana ma ahna meel magaalo ma aha laakiin meeshan loogu daji laakiin meel ceeler ku eedanay ceeler aan soo dhaxmarna markii dambe oo anagu gaari saaran ceeler aan soo maray ceeler Allah oo kala macnaha meeshan ka haystaa macnaha cabir ahaan ceeler aan soo marnay meel hadii aan galhariyadan kamid ah oo duuraha aan garanayno hadii magaalo hebel aan dhahay u dhowna lahayn yaana la keenay meeshii baan cabaar joognay muddo adii 2 bilood oo kala ah haddana meeshii sii joognay kadib yaa marka meel loo kala qaaday ma aqaan ciidanka marka la kala jaray qayb waxa loo gudbiyay xagga mudug oo labada gobol hadii galhariya iyo mudug way kala yihiin soo mudug waa loo gudbiyay qaybta mudug baan ku darsamaan oo ku jiray meel waxaan la geeyay jawlo horteeda oo meelaha xagga hore oo afka hore xardheer baadka aadan farax meel ay dhahan yana la geeyay meesha waxaan joogay muddo 4 bilood wax yar dhimana aaday yaan joogay kadib amar la'aan ka soo tagay meesha waxa soo aaday jawlo 8 saac ama 9 saac wax noocaas loo soconay meesha suuxi saan soo baxay baan imaaday casirkii magaalada intaan soo gaaran ali qabtay oo ayaga qabtay macna hadalay qabtay waxa ku soo waday yaday waa soo baxay oo ogow niman kale ay qabtay xabsiga la dhigay qab badan galnay wuxuu ahaay anagoo 20 qofood ayaa nala qaaday dagaalka caaduna ah taariikhda ma xasuusto laakiin soonka hadda aan soo dharnay soonkiisii kale 2 bilood oo ka horeysay macnaha bisha labaad oo ka horeysay iyo ah taariikh ahaan macnaha waqti ahaan markaan qiyaas aan ka soo qaatay magacii waa daruur bashiir macu waa leeyahay anigu magaca caadiga oo caamkan ku ah qabiilkiina waa makane meeshan ku dhashan waa jubada dhax waxbarasho meel tuulo aan wax ku bartay oo jubada dhax kameel ah dugsi quraan aan dhigtay meel dheer kuma gaaran laakiin inta yaroon bartay waa qaarna waa iga baxsadeen qaarna waa haystaa nimankan waxaan ka raacay gobolka iyada oon joogay jubada dhax meeshan ka raacay bugaal Allah macnaha hadii ay hoos tagtaa laakiin meesha aan degan oo joogo waa meel tuulo cilmi ay dhahan hadii wacdi gelintooda iyo markay tuulada ay soo booqdaan wacdi gelin oo macnaha rag waa ku iimaanayo hadii ku wacdi gelinayo maartay maxaadar ku dhigay mugti maxaadarada ay ku dhigaan hadii cid kale meesha ka maxaadareysa malahan hadii gobolka asaga waa cid haysto kulay waa ogtiin anigu marka hore waxaan ka shaqeeyay